waxaanu isu keenay caawa inaanu idin sheegno go'aanka ka soo baxay guddiga fulinta xisbiga kulmiye oo si aad ogeedeen maalmahan ba shiru socday guddiga hore aan soo saaray waxay 19 markii intaas oo dhan qolada hoggaanka loo jeediyay talaasi guddu soo jeedisay in la kordhiyo guddiga fulinta ee kulmiye oo lagu daro 8 xubnood guddiga qabanqaabada in lagu daro 8 xubnood meelo badan oo cabasho ka timid hadday beela tahay dabeetana ay noqoto 720 xubnood 8 lagu darana magacyadooda waa la siinaya guddiga fulinta ee kulmiye waxay ansixisay oo isku raacday in guddiga qabanqaabada noqoto 720ka 19 hore la magacaabay iyo 8 caawa la magacaabay lagu daray go'aanada labaad qaadana waxa ahaa wanta guddiga fulinta ee xisbiga kulmiye waxaanu ku kordhinay 7 xubnood oo aanu ka soo qaadnay xisbiyadii ku soo biray ururada ku soo biray xisbiga rays iyo dalsan iyo ummadda oo go'aan aan ku heshino iyagana waxaanu ka mahadnaqayaa ragga ururadas ee walaal soo xojiyay waxyaalaha aan ku heshinay ama inaga codsayn nagu leeyahay inay aad iyo aad noogu tanaasuleen si aanay wuxuu nooga biyo dhicin oo ay xadka u dhaafay guddiga fulintu waxaan aad uga mahadnaqayaa odayaasha xisbiga hogaaminayay iyo raggoodiiba iyo kuwii qaatayba inaanu aad u cadaadino oo ka soo qaadin 2 iyaga oo aanu taagnan 10 iyo wax ka badan markaanu eegno miisaanka ay la yimaadeen iyo xoogga ay ka heleen doorashooyinka maanta waxaan si wanaaga oo xisbiga kala dheeryahay oo run oona faanka naga hayn in xisbiga kulmiye tira go'aan la yaqaano lahaa wala dhexe sharci loo kala baxal lahaa tii maanta noo fudaynaysa weeyaan in marka halka aan ka sii qaadano oo aanan isku dib dambe marka loogu maro laakiin xoogaa sharciyada oo taqaanaan waa lagu marmaayo in basibu dhan uga akhriya intii lagu marmay wax kale ma hayne xisbiyada ururada marka cod kala ee nagu soo biiray idna madada fiinayno ee waa dad awoodoodii xoogooda la yimid laakiin macnuhu guddigay waxaan waxay dhexdooda isku dhaceen ma ku haboon tahay yaa asxinay yaa sharci garanaya ma tabaxay hadday sharci ahayd iyo hadday ahayd in waxaygaan urursanaba ilaa 4 saacadood dambeysay aan ku guuleysanay inaan afkaartiisa soo dhaweyno aan dabeedna aan midayno tiina ay suura gelisay inaan caawa oo bishu 22 tahay aan isku raacno tirada guddiga la sheegay anaan sheegno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii dhammaan guud ahaan guddiga fulinta runtii oo maartay runtii xilkaasnimo iyo odaynimo iyo dulqaadba muujiya runtii idinkana sida la sheegay waxa qurux badan idinkuna kulli dalka jeclaysa qaybad ku leeyihiin hadday xukuumad tahay hadday xisbi tahay iyo wax kasta bayna aan jecelahay asxaabadiin inaad qarankan dadkiina naga dhistaano waxa wanaagsan ee maanta aan qabanana waa sheegtaan ama buubuurisaan ma garas wixii dhaliila ee macquulana constructive inaad tilmaantaan oo nahagtaan waan ogolahay laakiin say naga noqon qof yar jeclaysi iyo qof leeyahay iyo macnaheedu aynu wada ilaa shaqada wada leenahay ma kala xigno quruxdiisa iyo horumarkiisa iyo himiladiisa inaynu wada gaadhno